kusoo dhawaada Nasri Channel 999 waa barnaamijkeeni oraahda siyaasadda. Madaxweynaha Djibouti wuxuu yimi Soomaaliya iyadoo dhulka iyo cirkaba loo xidhay madaxweynaha. Sidoo kale waxaynu oran karnaa waxa loo xidhay badda. Haddaba imaashiyaha madaxweyne Geelle ee badda loo saaray magaalada Muqdisho ixtiraam baa mise waa cabsi. Takale maxay tahay madaxweynaha dhagarta intan leeg ee uu galay madaxweynuhu mise waa ixtiraamka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa marka wax ixtiraamayso oo ixtiraamta inay cirka iyo dhulka iyo baddaba intaba ay u xanibto oo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaas ee masaakiinta ay xayiraado u saarto. Horey waxa uu yimi magaalada Muqdisho 7 sano ka hor madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan sidaana looma xanibin dadka. Haddaba waxaa halkaa ka muuqata dhagar xooggan oo madaxweyne Geelle galay oo ka cabsanayo in dib loo geysto. Dhinaca kale ma oran karnaa madaxweynuhu wuxuu ka daba yimi yaradkii gabadhiisa Xasan Sheikh wuxuu u maleynayaa in yaradka gabadha madaxweyne Geelle kaliya ay tahay in la bixiyo un lacag iyo xoolo, laakiinse madaxweyne Geelle isagu wuxuu rabaa sheer iyo mashruucyo balbalaaran in la siiyo. dadka falanqeeya dhaqaalaha amba dhaqaalyahanada ayaa waxay sheegeen maalintii shalay ahayd ee la xanibay duulimaadyada iyo magaalada Muqdisho in magaaladaasi ay soo gaadheen dadka ku dhaqani dhaqaale burbur aad iyo aad u ba'an. sidoo kale dad fara badani ay ku waayeen maciishadii ay soo shaqaysan jireen. imaashiyaha madaxweynaha waxaynu oran karnaa imaashiyaha madaxweyne Geelle ayaa waxaa loo muujiyay runtii in mas'uuliyiinta dowladda oo aan mari ka harsanayn ay dhammaantood isu soo safaan oo xitaa uu ra'iisul wasaaruhu ku jiro. Haddaba arrintaasi waxaynu oran karnaa waxa weeye ixtiraamnimo way dhaaftay, yacni waxa meesha ku jirta xidhiidhnimo.